Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada waa walaalkiin Cabdalla Dayib. Maanta waxaan ka hadlaynaa biyaha iyo waxtarka u leeyihiin jirka. Maalin walba dhakhtar haddaad tagtid, haddaa wax dareentid, dhakhtar walba wuxuu ku weydiinayaa maalintii inta biyo aad cabtid. Meel walba waxaa lagu qoraa biyo badan hala cabo, caafimaadka u fiican yihiin, biyo badan cab, biyo badan cab, biyo badan cab. Maanta waxaan isla fiirinaynaa waxtarka iyo dhibaatooyinka ay u keeni karaan biyo cabid la'aanta iyo waxtarka ay u leeyihiin jirka biyaha haddii la cabo, iyo qofka meelo u baahan yahay inuu cabo. Intaas oo dhan ayaa isla fiiri doonaa. Welcome, gacmo furan kusoo dhawaada. Haddaan gudaha usii galno, jirka bini'aadamka wuxuu ka kooban yahay 60% biyo ama dareere ayuu ka kooban yahay. Dareerahaas biyo u badan. Marka jirka wuxuu u baahan yahay inuu mar walba la socdo biyaha, maadaama boqolkiiba 60 jirka uu ka kooban yahay biyo. Wax yar oo biyahaas oo jirka ka baxaan wax weyn ayay ugaga dhigan tahay jirka. Waxay sababaysaa xubnaha qaar inay shaqadooda isdhimaan. Marka jirka controlka biyaha waxa waaye zaid ayuu loo controlaa jirka. Marka oonka oo qofka oo dareemayo wuxuu ka dhigan yahay jirkii inuu controlkii oo sii wadi waaye oo ku digayo oo inaa biyo cabtid waaye ama dhibaatooyin kale kaaga imaanayo. Marka qofka markuu oonka dareemayo waa mar jirka uu controlkiisa oo sii wadi waaye oo haddii selalka qaar ama xubnaha qaar ay shaqeyn waayeen, markaas ayuu jirka oo qofku digayaa. Inta ka horeyso jirka wuxuu sameynayaa, maskaxda waxay soo daynaysaa wax la dhahayo ADH. Marka waxaa la sameynayaa wixii kaadidii jirka oo soo bixi lahaa ayaa waxaa laga yareynayaa, biyaha laga soo yareynayaa. Kelyaha ayaa biyaha laga soo bixinayaa oo kelyaha jirka waxay u qaabilsan yihiin inay wasaqda dhiigga ku jirta ee ka dhaqaan, wasaqda ee banaanka u saaraan. Marka oo fikir adiga alaab intaan dhan oo in la dhaqal rabo oo lagu sii biyo wax yar dhibka oo ka dhalan karo oo jirkeena dhexdiisa yaadane. Waxyaabaha ay sababaan biyaha yari waxay ka mid kelyo xanuuna ka mid kelyo xanuun ay keenaan. Qofku markuu biyo badan oo mar oo xilli dheer oo biyo la'aan oo biyo badan oo isticmaalin oo biyo fiican oo loo baahnaa u qaadanin, dhib weyn ayaa ku imaanaya kelyaha. Marka ma loo baahno inaad sugtid ilaa ka dareemaysid oo waxaa lagu baahan yahay inaad ka hor aad biyo isticmaashid. Maalintii qofku wuxuu u baahan yahay 8 galaas ugu yaraan. 8 galaas waa inuu isticmaalaa oo biyo u cabaa. Teeda kalena waxaa loo baahan yahay inay ahaataa consistency, si joogto inuu u isticmaalo biyaha. Dhiiggeena sida qof walba og yahay wuxuu ka kooban yahay dareere oo jirka dhan ku wareegsanayo. Marka dareerahaasne wuxuu u badan yahay biyo. Qofka biyo la'aan haddii ku dhacdo dhiiggii waxaa ku yaraanaya, dhiiggii wuu adkaanayaa. Markuu adkaadana dhibaatooyin fara badan ayuu jirka ku keenayaa oo sidoo xinjirowga kale ka mid oo dhiiggii inuu xinjir noqdo oo meeshii xididaha ay dhiig mari waayaan oo qofka xitaa noloshiisa ay halis gasho. Wax yar maahan marka qofka inuu biyo la'aanta dhibka jirka ku keeni karto. Waxaa ka mid markii qof jirka oo dhiigga ku yaraado wuxuu sameynayaa xubnihii biyaha oo ku jireen oo u baahnaayeen inay energy ay ku samaystaan, ay ku shaqeeyaan, ay jirku ku shaqey lahaa in oo biyaha laga soo bixiyo si
oo meelaha kale oo dhiig iyo selfiga kale u baahan oo loo geeyo. Xubnaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah maskaxda. Maskaxda markii selkeeda biyaha laga soo bixiyo qofka wuxuu dareemayaa madax xanuun iyo waxaa kale dhibka keenayana waxaa ka mid ah qofkii inuu dhididi waayo. Asigoo qofka kuleel haayo meel kuleel joogo qofkii inuu dhidid jirkiisa bixi waayo oo jirka la qabooji waayo oo qofkii oo dhibkaas u keeno. Marka waxyaabaha kale oo biyo la'aanta ay keenayso waxaa ka mid ah in caloosha si fiican cuntada u shiidi wayso oo qofkii calool xanuun u keeno constipation oo dareemo qofka caloosha laga qabto oo xanuunyin badan ayuu keenaa marka oo keliyahana waa soo sheegnay keliya xanuun ayuu keenaa intaas iyo in ka badan ayuu sababaa biyo la'aanta. Marka waxaa dhahnay qofku wuxuu u baahan yahay inuu maalintii isticmaalo 8 galaas oo si joogtana u isticmaalo. Hadda kadib sidaa soo sheegnay kanaalka waxaan kusoo gudbi doonaa caafimaadka iyo fiidiyooyin wacyigelin oo ku saabsan. Sidoo kale insha Allah waxaan kusoo gudbin doonaa cashiro iyo loogu talagalay ardayda dhigato caafimaadka. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Waa walaalkiin Cabdalla Dayib oo mar kale idin leh gacmo furan kusoo dhawaada. Insha Allah waa isla joognaa. Salaamu calaykum.